salaamullaahi calaykum kusoo dhowow channelka Soomaali haddii markii kugu horeysay tahay nagu soo biir oo nala rafiyay maanta waxaynu ka hadlaynaa xayawaanka ugu qayaanada badan leh adduunka haddii aad islahayd bini'aadmiga qura ayaa iskhayaana waa been waxaa jira xayawaano ay kaliftirkooguna iskhayaana biqudratillaah middan ugu horeysan soo qaadanayno waa shimbir loo yaqaano afka Ingiriiska Coco Common laga yaabaa inaan si qaldan ugu dhawaaqay laakiin waa sida shaashada idinka muuqata shimbirtani waa mid aad u qayaano badan xeeladeeda qayaano waxaa ka mid ah in ukunta ay dhasho aanay u samaysan cuf ama meel ay ukunta dhigato taas beddelkeega waxay raadisaa shimbir kale meel ay dhigatay ukunteeda waxaa la yaab leh in ukunteeda ay u ekaysiiso ukunta shimbirta kale leedahay ee ay ukunteeda ugu dhex qarinayso ukuntaas ay shimbirta kale ku qayaantay korin mayso kuna fadhiisan mayso ukuntaas taa beddelkeega waxay ka dhowranaysaa ka eegaysaa sheeda ilaa inta loo korinayo shimbirtaas waxaa kaloo tacajab iyo ama kaag ah in ukuntan khayaanada lagu keenay ay ka hor dilaacayso ukuntan kale ee shimbirtan la khayaanay leedahay mar alla markay ka hor dilaacdo ayaa waxa ay bilaabaysaa ukuntii yareed ee khayaanada meesha lagu keenay inay ukumaha kale ka daadiso cufka si ay iyada keliya cunto u hesho waa khayaanada ay hooyadeed meesha u keentay bay ayadana bilaabaysaa kabacdi waxay samaynaysaa ukumihii kale ee meesha ku jiray ee shimbirta kale lahayd bay ka daadinaysaa meesha dhexdeeda si iyada keligeed meesha ay ugu hadho hadda waad u arkaysaan baan malaynaa hadda waxay bilowday saad jeedaan inay xataa ilmihii ka dhex tuurto meesha dhexdeeda sida idin muuqataa markii hore ukuntii bay tuurtay imikana ukunta waxaa jirta kuwa dilaacay ayaguna kuwii dilaacabay ka dhex tuuraysaa meesha dhexdeeda waa khiyaano cad ay hooyadu ku keentay yacnihii natural ilaahay baa ku abuuray inay sidan u noolaadaan marka yacnihii waxyaabo waxaa jira tafajac yaa makaa ku keenay shimbirtan imika hooyadeedna dhib kagama bixin ayadoon indhihaba kala qaadinba waxay bilaabaysaa inay ukumihii kale meesha ku dhex jiray ay ka daadiso waa tacajab waa makaag yacnihii markaad aragtid waxyaabaha naturaalka uu ilaahay dhulka dhigay ood u fiirsatid waxa ku cadaanaysa qudradda ilaahay yacnihii wax aan la qiyaasi karaynin bal imika si u tuuriso ukuntaday way ka tuuraysaa hadda waxa uu hadhayo kaliya 2 kaliyo dhal oo meesha ku jira labadaasna way ka tuuraysaa ay meesha kaliyeed ay ugu harto kabacdi waxaa jirtaa hadhow tole way weynaan doontaa cufkani ma deeqi doono sababtoo ukumahan kale wayba ka weyntahay ayadu kabacdi waxay samayn doontaa in ukunta markay weynaato inay cufka dhexdeeda ka dhex baxdo ay korka shimbirtan xataa ku dul fadhiisanaysa ayadaaba ka siiba weynba yacnii hadda kuwan kale ka dhex tuuraysaa sida idin muuqata midda labaadna waxaa jirta markay hooyadeed ukunta keenaysa meesha cufka waxa weeye waxay u ekaysiinaysaa ukunta shimbirtan la qayaanayo ukumaheyga yacnihii ukumaheyga ay liqaysaa maadaamay shimbirtan shimbirkay xajmi weyn tahay shimbirtan wax khayaanaysaa ukumaha markay liqdo waxa u ekaysiinaysaa ukuntii shimbirtii la khayaanayay yacnihii markaa shimbirtan la khayaanayo si aynu u fahmin inay ukun dheeraad ah oon ukunteeda hayn ay cufka ugu dhex jirto saa darteed marka ma dareemayso mana tabayso inay ukuni loo dhex dhigay ama ukun oo naalo ku cusub ay meesha u dhex taalo kabacdi sidaabay ugu dul fadhiisanaysaa show waxayba korsanaysaaba waa wixii dhasheeda ka dili lahaa midda saddexaad waxaa kaloo jirta ayadana ukunta markay dhex dhigaysa meesha waxay eegaysaa inta midha ukumay ugu jirta hadhow tolaan arki doonaa ukunta markay eegto haddii matalan ay 3 xabo ukun ugu dhex jirto ama 4 xabo naali xabad bay ka dhex tuuri si ay ta afraad uga dhigto teeda haddii 3 ukun ay ku dhex jiraan ama naali saad u taqaanid xabad bay tuuri teedii marka tastaxaad uga dhigaysaa hadda sida inoo muuqata cufkii bay dul timid waa shimbirtii khayaanada waxay liqaysaa ukumihii kale ee ay dhigatay shimbirta kale ee la khayaanayo marka waxay u liqaysaa si ay tirada ugu buuxiso ukunteeda
waad fahantaan malaynaya waxaan ka wado yacni ukumay ka dhex saari kabacdi naaladeeda ayay ku daraysaa oo tirada ku buuxinaysaa way fahmaysaa wax walbaba hadda naaladiiba dhigtay kuwii kalena iyada way ka dhex qaado oo way ka liqday yacni kuwii ay meesha ku buuxinaysay hadda waxaa inoo muuqdo cufkii shimbirta ama gurigii shimbirta waxaa dhex yaala 3 naalo shimbirtii kala imaanaysa waxay arkaysaa hadda inay ukumi ugu dhex jiraan main tabin sababtoo ah naalooyinkan way isku egyihiin way u ekaysiisay naalooyinkayga way ekaysiisay ayadii korkay kasoo daawanaysaa dushaasi kala socotaa kabacdi saacado ka hor waxaa dilaaci doona ukuntan oo naaladan oo khayaanada ayaa dilaaci doonta waxayna bilaabi doontaa inay ka dhex tuurto sidii caadada u ahayd ukumaha kale shimbirtan la khayaanay ay leedahay hadda waxaad u jeedaan markiiba shaqadeedii bay bilaabatayba way dilaacday markiiba oo way dhalatay beebigii yaraa kabacdi waxay bilowday in ukumihii kale ka dhex tuurto yacnihii waxa weeyaan wax aan la aamini karin yacnihii wax walba siduu u shaqaynayo bini'aadmi kaliya khayaano ma yaqaano haddaad islahayd bini'aadmiga kaliya khayaano yaqaana xawayaanka laftirkooduna khayaano way yaqaanaan ilaa arka okay hadda 3 xabo ukuna meesha ugu jirtay 3dii xabbe ukunta ahaydba waxay ku dhex dartay biyaha way ka daadisay wajiib intii bay ka daadisay shimbirtan la khayaanayo way yaaban tahay maxaa socda bay isleedahay maxaa dhacay maxaa la daadinaya warow hayso ma jirto okay haddana waa barnaamijkeena labaad waa penguin xawayaankan penguin la dhaho penguin waxa weeyaan xawayaan shimbir ah oo ku nool barafleyda dhulka barafleyga ee qaboobaha ah shimbirkana asay laftirkiisa khayaano u yaqaanaa oo hadda sida idin muuqata shimbir kale oo ayuu arkay isagoo shimbirtiisii la jooga deetoole way iskugu tegayaan gebigooda way dilayaan sababtoo ah shimbirtii kale oo tani kan yacni wax dilayay aw qabi ayuu u yimid kuwa kalena way la dilayaan marka shimbirtan ayadana waxay taqaanaa oo kale iyaduna markii dhalaan dhashooda waqtiga barafka ninka haya oo naagtu waxay u doontaa qadhaab iyo cunne u doontaa inta ilaa iyo ukunta ka dilaacayso kabacdi markii naaladu dilaacdo ay ilma noqoto waxa jira qaar ilmayaashoodu ka dhintaan markaaba waxay sameeyaan khayaano waxay qaataan ilmaha kale oo yacnihii ta kale leedahay barnaamijkeeni intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum kulanti dambe